كونسل دول تي في qodobada in helno waxa u dooran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo kormeer iyo indho ku sameeyay isbitaalada qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ciidamo gaarsiisay gobolka Sigedo iyo wararka dibadda waxa u dooran dalka Armenia iyo Azerbaijan oo xabad joojin ay kala saxiixdeen ay si wali dhaqan gali qodobo kala faahfaahsan ayaa ku daawan doontaan u diyaar garooba asagoo dhamaystiran. فضلا هدي أي دعوة مركو ورئيس بوقته جنرال كرمول تي في فضلا سبسكرايب صار كمبرال كان فرو جنرال كان سيادة وش ورك وقدم به كوسابسون سومالي ده عالم أنكو بالله رئيس الوزراء الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبله maanta indhayn iyo kormeer ku sameeyay qaar ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho. Isbitaalada ra'iisul wasaaruhu tagay waxa ka mid ah isbitaalka Banaadir, Yardamiri iyo sidoo kale isbitaalka Martini. isbitaalada ra'iisul wasaaruhu indhaynta ku sameeyay wuxuu halkaas ugu koorgalay xaaladda caafimaad ee dadka ku sugan isbitaaladaas iyo sida ay u adeegaan isbitaalada dadka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo halkaas kulamo saacado kula qaatay agaasimayaasha iyo waliba howlwadanada isbitaalada ayaa warbixino ka dhageystay isagoona ra'iisul wasaaruhu uga mahadceliyay qaabka ay u adeegayaan bulshada Soomaaliyeed. ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxbiyad gaar ah siinaya wuxuu qabadka bulshada Soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyay dhaqaatiirta caafimaadka iyo halkaas maamulayaasha ku sugan shaqada adag ee u hayaan bulshada Soomaaliyeed. waxaana maruu hadal u jeedinaya ka mid ah hadaladiisa إن شاء الله مركي وزارة هنا صار لسنا فدين قنيا يلانينا سيان وقت هذا النوح بجد عن سنة يوحى عن سالات كم عافماتك عن هو اللي كيف قرين كرنا عن كوتر قرين كرنا إن شاء الله هم بلي هذا اللي هاي نقسمها يوم حلا سحبتي مركوا سود هذا وإن شاء الله أنا كانوا يدين قرب تاجرنا وأنا واحد مهمة إن مركز اللي دي ماذا سبورت اللي دي ميد مرالا من حالة دقالة مركز إن شاء الله ومدان صوريس دونا consideration. waxaa guud ahaan loo xiray saaka magaalooyinka waxaa badi la xiray saaka wadooyinka magaalada Muqdisho iyadoo loo xiray arintan ra'iisul wasaaruhu booqashada uu ku tagay isbitaalada wuxuu halkaas ra'iisul wasaaruhu kula kulmay dhaqaatiirta iyo howlwadanada caafimaadka iyo agaasimayaasha guud ee isbitaalka asagoona warbixino ka dhageystay ra'iisul wasaaraha ayaana soo gabagabeeyay booqashadiisa isbitaalada. dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa gaarsiisay ciidamo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gobolka Sigedo xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya iyadoo dowladdu ka dejisay halkaas ciidamo ay ugu talagashay inay iska difaacaan Kenya. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa isku dayeysay inay ka hortagto gardarrada Kenya ee ka wada gobolka Sigedo xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya. waxay xukuumaddu mar walba u diyaar garoobaysaa dagaalka dhanka Kenya iyadoo Kenya weeraro hanjabaad iyo waliba gacan ka hadal ah kusoo qaaday Soomaaliya. waxay dowladdu ka jawaabaysaa arrintaas iyadoo ciidamo gaarsiisay gobolka Sigedo. dowladdu markasta u diyaar garoobaysaa wax ka qabashada xaaladda taagan markaas iyadoo ciidamada Soomaaliyeed ay u diyaar garaysan yihiin la dagaalanka ciidamada Kenya. maamulka gobolka Gedo iyo ciidamada dowladda oo isgarabsanaya ayaa u ruqansaday xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya ayagoo isku dayay ciidamadu inay reejiyaan ciidamada Kenya ee ku sugan xadkaasi. waxayna ciidamada Soomaaliyeed markasta isku dhiirigelinayaan inay leeyihiin dhulka iyadoo ciidamada Kenya u muuqato inay markaan kuwa ka sii ruqansanaya xadka yihiin. waxayna madaxda ugu sarreysa Kenya ku hanjabayaan inay dagaal u shirgali doonaan Soomaaliya haddii ay joojin weyso qaska ay ka wado gobolkaasi Gedo. dhanka kalena dagaalka u dhaxeeya dalalka Armenia iyo Azerbaijan ayaa sii xoogeysanaya. waxaa maalin ka hor heshiis lagu gaaray magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka iyadoo heshiiskaasi uu goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalkaasi Ruushka Vladimir Putin. waxaa haatanba la sheegaya inuu heshiiskii noqday waxba kama jiraan kadib markii weerar la sheegay inay ku qaaday Azerbaijan guri ay dad shacbi degan yihiin. Armenia ay aad u shaqo saartay hase yeeshee Azerbaijan ayaa iska fogeysay eedaas iyadoo dhabarka u saartay dowladda Armenia sheegtayna iyadoo qalad ka leedahay. dowladda Azerbaijan ayaa la sheegayaa
inaysan weerar ayaa sheegaysa inaysan weerarka iyadoo geysan ee ay geysteen ciidamada Armenia dhulka lagu magacaabo Nagorno-Karabakh ee u dhexeeya labadaasi dal ayay dalalku isku weerarsanayaan xabadda iyadoo toddobaadyadii ugu dambeysay iska dileen dad gaaraya ilaa 500 oo qof. Dadka dhintay waxay u badan yihiin dadka rayidka ah ee ku sugan gobolkaasi. Gobolkan waxaa sharci ahaan adduunku u aqoonsan inay leedahay Azerbaijan, hase yeeshee waxaa ka dagaalama fallaagooyin ka tirsan Armenia oo la sheegayo inay isku dayayso quudaraynta gobolkan. Dowladaha Armenia iyo Azerbaijan, Ruushka iyo Turkiga ayaa isku dayay inay xabad joojin dhex dhigaan iyadoona magaalada Moscow heshiis lagu gaaray laguna kala saxeexday xabad joojin. Hase yeeshee xabad joojintaasi ma aysan dhaqan gelin oo dadka shacabka ah ayaa weli xasuuq lagu wadaa iyadoo dadku lagu xasuuqo guryo dhaadheer. Dadku waxay ka cabanayaan guryo lagu baabi'iyey kadib markay ku soo dhaceen qumacyo waaweyn oo ay diyaaradaha lidka xambaara ku soo ridayaan. Dalka Armenia iyo Azerbaijan oo is weerarsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaa adduunku ka qaylo dhaaminaya qaabka loo dami karo dagaalka. Warkii oo aad kala socoteen Dhuumoodle TV intaa ha inoo joogo. Intaan kan kiisa xigay ku kulmi doono.